بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسو دوادا برنامج كيني تربية أرديغا يقيبتي سلبات عوان كيسنا وحو نقون دونا معلنكا أرديغا مادام قيبتي سكوات aan ugu soo hadalnay macalinka ardayga iyo waalidka. maanta waxaan qaadanaynaa marka macalinka iyo ardayga xiriir noocee ayaa ka dhaxeeyo. ardayga maxaa laga rabaa, macalinkana maxaa laga rabaa. qof walba waajibaad ayaa saaran. haddaan ku hormarno xikmad waxaa jirto oo caam ah oo cajiib ah oo leedahay kaada almuallimu an yakuuna rasuula. macalimkii wuxuu sigay inuu noqdo rasuul. micnaheeda macalinka wuxuu u dhawaaday inuu rasuul noqdo. rasuul lagama dhigi lahayn. micnaha waxaa laga wadaa macalinka wuxuu uga jiraa dhanka nebinimada marka laga fiiriyo qodobadaasi dhanka balaaqada. maxaa yeelay macalinka fariin ayuu gudbiyaa, waa rasuul dhanka balaaqada ayuu ka yahay. maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innamaa ana qaasimun, anigu cilmiga waa qeybiyaa. qofkii qaatana way anficaysaa, qofkii diidana asaga dhibaysaa. macalinka marka wuxuu ku jiraa booska nabiga. darajadaasi waxaa loo gaarsiiyey in dadka uu gaarsiiyo fariinta saxda ah, maadaama ardaydan uu wax baraayo ay yihiin ubax oo asaga uu beeray kadibna ay wax tari doonaan jiilka soo socda. macalinka waajibaadkiisii waxaa ka mid ah inuu ardayga tarbiyada u saxo. maxaa yeelay booska waalidka ayuu joogaa. waalidka markii ardayga uu iskuulka keenayo micnaheeda kaliya ma aha in la baro sida anuga magaciisa uu ku qoro iyo xisaab inuu ka shaqeeyo kaliya ma aha. ardayga aadaabta iyo anshaxa wuxuu ka soo bartaa fasalka dhexdeeda. macalinka waa inuu ahaadaa macalin mubdica oo hal abuur leh. tusaale ahaan adigoo cashar bixinaya haddii ardaydii ay kugu buuqaan waa inaad lahaataa asluub ama nidaam buuqaas aad ku dejin kartid, ardaydana aad u keeni kartid fikrad ay ku aamusi karaan. ardayga markaan u imaano, ardayga waxaa laga rabaa inuu macalinkiisa ixtiraamo, ka dambeeyo, amarkiisana qaato. macalinka hadduu ku dhaho istaag inaad istaagtaa. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa xiisadoo socoto inaad fasalka aad imaado, macalinka uu ku dhaho fasalka ma soo geli kartid. waxaa laga yaabaa ardayda qaar inay dhahaan macalinoo annaga lacag ayaan baxsanaa, $20 iskuul ka dhiibanaa, adigana fasalka igama celin kartid. hadalkaas markii la fiiriyo waa sax, adiga lacag waa dhiibataa, laakiin lacag uma dhiibatid in macalinkaaga anshax xumo ku dhaqantid. macalinka wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaho xiisadeeda iga bax. adiga ma dhihi kartid marka anigu lacagaan baxsadaa, lacagtaa waxaa u dhiibataa in anshax lagu baro. khaas ahaan xiliyadan imtixaanaadka waa in macalimiinta laga faa'iidaystaa, casharada si gaar loo weydiiyaa, maadada uu dhigo la yiraahdo macalinoo su'aalahan baan soo diyaarsaday iga soo jawaab. macalinkana wuu jecel yahay ardayga waxtarka leh. marka waxaa idinku dardaarmayaa in macalimiinta la ixtiraamo, macalimiintana ay soo saaraan jiil qurux badan oo macaan badan oo ardaydoodii wax u tari doonaan. maxaa yeelay ardaygan haddaa maanta raad fiican aad u reebto, markaad dhimato adiga wuxuu noqonayaa sadaqa jaariya. maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka hadduu dhinto waxaa ka haraayo camalkiisa haddii uu sameeyo sadaqa jaariya ah. tusaale ahaan hadduu sameeyo ceel oo kale, ceel buu qoday, masjid uu wax ku darsaday, waa sadaqa jaariya ah. ama cilmun yuntafacu bihi, cilmigu qof wax ku taray, cilmi adduunyo iyo mid aakhiro. ninaa waxaad bartay sida loo shaqaysto, ninaa waxaa bartay computer, ninaa waxaa bartay xisaab, ninaa waxaad bartay luqadda ingiliishka ah. asagana macalin buu noqday, fasal buu abuurtay, iskuul buu furtay. shaqadaas uu ku shaqaysanayo ardaygaasi adiga markaad dhimato ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkaaga wuu socodsiinayaa, marnaba makaa joogsanayo. marka aan ku dadaalno macalimiina inaan soo saarno jiil qurux badan sida jiilka saxaabada oo kale. ardaydana waxaa waajib ku ah inay macalimiintooda ay ixtiraamaan sida waalidkooda ay ixtiraamayaan oo kale. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.